طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والعليال meel kastood ka sugan tihiin caalamkan aan ku noolahay waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tihiin ikhwaanii fillah aad bana waad u raali noqonaysiin muddada yar ama muddada nuska ah oo aan hawada ku kala maqnayn si uu keenayay wax badan oo dhalinyarada ka shaqaynaysay ay isku dubaridayeen oo ay u suurtagali lahayd inay howlaha isku dubaridaan insha allahu tabaaraka wa tacaala caawa waxaan u fadhinaa mawduuc aan isleeyahay waa mawduuc muhiima waa mawduuc ku saabsan mustaqbalka waddanadeennan iyadoo aan ka dhaqaaqayno waxa inagu meersan marka laga dhaqaaqo maanta waxaan joognaa 2022 ilaa 2032 yacni 10 sano ee soo socota maxaa laga filayaa waddanadeennan inay ka dhacaan marka lagu eego cilmiga loo yaqaano futurologiga ama loo yaqaano cilmiga mustaqbalka maxaa ka dhici karaya waddanadan aan anaku aan degannahay ee ku yaalla bariga afrika oo ka mid ah qaaradda afrika marka insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaan ku furfurto kelmad yar oo ku saabsan 3 kelmadood kow waxaan jecelahay inaan ka hadlo abaaraha ka taagan meelo ka mid ah bariga afrika abaarahaas oo saameeyey dhulka aan degannahay oo ku haya fara adag abaarahaas sidee looga bixi iyadoo waa mawduuc u baahan diraaso iyo u baahan ka hadal oo waxay ku saabsan tahay mawduucan aan maanta ka hadlaynay ah mustaqbalka maxay nagu soo socda laakiin waxaa jira walaalayaal abaaro baahsan oo u baahan 3 qolo inay dhaqaaq sameeyaan marka hore waxay u baahan tahay inay dhaqaaq sameeyaan dowladaha ka taliya waddanadan geeska afrika soomaalida maaragtay waddanadooda oo dhan iyo ethiopia jabuuti kulli waxay u baahan tahay in tallaabo la qaado غير caadiya si loo gurmado dowlad ahaan lianno abaarahan roobkii waqtigii la filayey ma dhow abaaraha dhacayna waa abaaro adag weeyaan marka in la gurmado waxay tahay daruuri marxaladan marka qolada koowaad aan la hadlayo waa qoladaas weeyaan haddii uu jiro wax damiira
oo ilaah ka baqa oo dhaafsan kursiga la dul fadhiyo in dadkan masaakiinta ah ee wixii ay haysteen dhammaanayo ee gurayo gobollada uuna weli soo gaarin oo kusoo socdaa abaartan baahsan marka iyada ina la gurmado ay dowladuhu gurmadaan waa lagaba maarmaan weeyaan la isku gurmado lana wada gurmado arrinta labaad waxa weeye qolada labaad ee la hadlayo waa qolooyinka baayac mushtarka ah ee ilaahay uu siiyey xoolahaas siday doonay ha ku helaan xoola haysta iyakana waxaa waajib ku ah waajibu saaca saacaddan waxaa waajiba amba waxay u yaqaanaan culammadu waajibulmarxala waajibka marxaladda waxa weeyaan waa atasaduq sadaqada lala baxo marka maanta sadaqad in lala baxo waa waajib kastiba iyada ka weyn marka insha allahu tacaala sadaqadaas dadku aad baa loo barakacay aad baa xoolihii u dhammaadeen aad baa loo gaajoonayaa gobollada ayna gaarinna tasaxurka iyo abaartu way kusii socotaa bilahan waxaa laga yaabaa haddii gurmad fiican uu dhici waayo in gaajo baahsan ay ka dhacdo geeska afrika marka taasina waa qolada labaad ee la hadlaya marxaladan qolada saddexaad ee la hadlayo waxa weeye waa culummada weeyaan dadka culummada ah inay qabtaan sidii lagu yaqaanay baaqyaal inay qabtaan diyaar baanu hayn dhankayga anigu oo lagu qabto idaacadaha iyo telefishinada ku yaala north america ku yaala maxaan ku dhahdaa gudaha soomaaliya gudaha wadanadeena oo laga hadlo oo la dhahdo hala gurmado oo xoolo loo ururiyo dadkaasi oona loo dhiibo gacmo caafimaad qaba oo gacmo aamina xoolahaasina loo dhiibo oo gacmahaasina ay dadkii mustaxiqiinta ahaa ay gaadhsiiyaan marka qolada saddexaad ee baaq u dirayana waa qoladaas weeye insha allahu tacaala marka marxaladan waxaa taagan marxalad adag oo lagu jiro abaar lagu jiro gaajo lagu jiro baahi in laysku gurmadana watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waqtigii samafalka iyo alla kacabsiga laisku gaarsanay weeye waqtigii laisku gaarsanay maaha dembiga iyo maaragtay ismi walcudwaan iyo xadgudubka laisku gargaarsanayey maaha siduu ilaahay qur-aankiisa inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala marka taasi waa midda koobaad oon aan jeclaa inaan ka hadlo midda labaad waxa weeye waxaan maqalnay oo farxad noo samaysay in cabdilmelik coldoon lagu waayey wax dembiya marka la eego cilmiga qadaaga yacni maxkamaddu way weyday wax dembiya oo ninkaas lagu haysto marka laba arrimood ba arrintaas waan ka hadlayaa arrinta koowaad waxa weeye waa arrinta ah inay maxkamadda hargeysa weli ay ka jirto cadaaladii weeyaan marka cadaaladdu xagga maxkamadda weli way shaqaynaysaa lianno wadanadan jaarkeena ku yaala oo hargeysa la jaarka ah somaliland maxkamaduhu waa la ogyahay sida ay yihiin waxay ku shaqeeyaan telefon marka halkan waxaa ka jira maxkamad ninkii ay dowladdu soo xidhatay la yidhi male wax dembiya male marka arrintaasi waa arrin muhiim ah raali noqda adugu telefon aad maqasheen waa arrin muhiim ah oo ku tusaysa cadaalad noocan ma inay jirto alcadluna wuxuu idhahdaa ibn khalduun asaasulxukum haddii meel maamul ka jiro ha weynaada maamulku amba ha yaraadeen asaaska maamulku waa cadaalad weeye marka cadaaladdu waa asaasulmulk dowlad haddii la dhisaya cadaalad baa loo bahay marka maxkamaddaas waan ammaanaynaa qofka wax fiican qabtana waa la ammaanaa qofka wax xun qabtana waa la ceebeeyaa marka rabbilcaalamiinku waa ka abaalmaryo sida ay mu'asasadii u shaqaysay ay tiri ninkaa wax dembiya oo lagu hayo ma jiro sida ay sheegeen looyaradii difaacayay marka taasi waa midda koowaad weeyaan midda labaad waxa weeye qofka marka ay maxkamaduhu ay saamaxaan sida jabuuti ka jirta unba iminka somaliland ka jirta dowladdu markay rafacaan qaadato qofkii dib baa loo xidhayaa xabsigaa la geenaya marka cabdilmalik waxaa nala soo gaarsiiyey inaa dib loo xidhay oo dowladdu ay xidhatay marka cala ayati xaal
maxkamadaha labaad ee rafacaanka ilaa laga gaaraya maxkamadda sarena waxaan filaynaa xeer qura u yaalla somaliland in la dhowro oo xeerkaa la ilaaliyo marka dambe wuxuu ahaan doonaa kii iska soo baxa marka midda koowaadi waa middaa weye midda labaad oo arrinta cabdilmelik aan ka hadlayo waxa weeyaan aldoon waa arrinta ku saabsan cabdilmelik muxuu sheegay wuxuu sheegay waa hadal hadalna waxaa loogu jawaabaa hadal gacanna kama hadal afkana kama dagaalamin ee wuxuu sheegay ra'yigaas uu adkanan karaa ama waa jilicsanaan karaa ama dhexaad buu ahaan karaa laakiin ra'yi buu cabiray wuxuu cabiray fikrad uu qabo waxaa la yidhahdaa qofka marka fikirkiisa laga hortagayo waxaa laga hortagaa fikir alfikru laa yuwaajahu bilcunf xoog lagama hortago sida ay sameeyaan wadanada carabtu lianna haddii xoog laga hortago xoogu wuxuu keenaa inuu ka kalena xoog loo isticmaalo waxaa keensanaya in laga adkaan kari layahay ururadan jihaadiga la yidhaahdo oo itaal badan lahayn laakiin waxaa loo isticmaali lahay wax weeyaan waa caqli iyo fikrad marka hadduu qofku fikrad soo bandhigo fikirkiisa fikrad baa laga horgeeyaa waa lala niqaashaa marka taa lama isticmaalin xoog baa la isticmaalay waxaana jira waxa la dhahdo cunfu dawla xooga dowladda iyo cunfu ljamaacaat iyo xooga iyo itaalka jamaacaadka iyo waxaa jira waxa la dhahdo cunfu muasasaat ama cunfu afraad saddexda baa jira marka qaarkood dowladuhu waxay isticmaalaan cunfi iyo gacanka hadal iyo xoog dadkuna way isticmaalaan oo qof baa isticmaala ururaduna way isticmaalaan saddexduba waa mudaan saddexduba way cambaaraysan yihiin maxaa yeelay xooggu ma keena xalku waxa weeyaan waa in la isqanciyo weeyaan waa in wax laysku sheego weeyaan marka arrimaha uu ka hadlay cabdilmelik anuu anigii hore uga hadlay intaan ku waafaqsanahay iyo intaan ku khilaafsanahay habka uu hadlay iyo habka aan ku khilaafsanahay habka aan ku waafaqsanahay waa nin xora weeyaan oo ra'yigiisa u xora marka sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah walaalayaal inaad taana la isticmaalo oonan lagu xallin xooggu adduunka wax uu sheegaya ayaa iska yar marka waxaa jira waxa la dhahdo marka maanta laga hadlayo cilmiga siyaasadda waxaa jirta waxa la yidhaahdo quwatu lfikra iyo fikratu lquwa qofku marka uu hadlayo hadday fikirkiisu quwad leedahay iyo haddii uu qofku isticmaalayo fikradda xoogga adduunka maanta waxa isku haya waa labadaa weeye marka iminka israa'iil iyo falastiin aragtid waxaa is haya quwadda fikradda oo falastiiniintu ay sitaan iyo fikradda xoogga oo israa'iil ay sidato marka dadka goorka la dhahdo ee shiinaha ku nool ee muslimiinta ah waxay haystaan quwad fikradeed laakiin dowladda shiinuhu waxay haysataa quwadda xoogga haysataa marka fikradda iyo xooggu markay is helaan oo midna fikraddiisu ay xoog badan tahay midna xooggiisu uu xoog badan yahay marka ugu dambaysa waxaa adkaata fikradda walidalik buu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi waalcaaqibatu lilmuttaqiin marka waxaa dowladahan isticmaalayo xoogga aan u sheegaynaa xooggu waxaa la isticmaalaa laba jeer waxaa la isticmaalaa marka cadow uu dibadda waddanka ka soo weeraro amba waxaa la isticmaalaa markay jabahad ay waddanka ka sara kacdo ay tiraahdo systemkan xoog ku bedilaya labadaa jeer uma xoog la isticmaalaa laakiin inta kale waxaa la isticmaalaa saddex quwadood oo kale waxaa la isticmaalaa quwat lfikr fikrad xoog badan quwat alqaanuun qaanuunka oo la xoogeeyo iyo quwat alwacyi waliclaam iyo warbaahintoo la xoogeeyo iyo wacyiga maanka oo la koriyo dadku markay maan yeeshaan lama siri karo dadkan waa cabsoonaa hebel inuu siro dadku macaruur aad dhashay maaha oo korinaysid dadkana saa laguma siri karo marka waxaa loo baahan yahay inaa arrimahaas si khaas ah loo eego yaa muhiim ah marka ikhwaani walaalaha dhammaan adduunka jooga arrintaas cabdilmelik waxaan leenahay dib ha loo eego waa muhiim weeyaan lianno ninkaasi waa dulsan yahay dulmigana in laga dulqaado waa daruuri sida aan u leenahay fu'aad oo ah nin ku xidhan dalka jabuuti fu'aad waxa weeye waa duuliye ninkan isagu wuxuu helay nasiib maxkamad rome buu helay oo fiican laakiin ninkaasi maxkamaddiina u waayey waa geesi tol waayey tol cadaaladeed iyo tol xeer iyo tol awoodoodbaba marka waxaa lagu xukumay 10 sano oo xadhig ah oo ku jiri doono 10 sano iminka inaan ka hadlo doonno wax dhici kara ma iska dhamaan doontaa
ninkaas markaa waxaa loo xakumay waxa weeyaan isaguna ra'yigiisuu cabiray naftiisuu la baxsaday isagoo hub direyska siduu iska dhigay waddanka uu ka orday wuxuuna yidhi meeshaasi dulmi baa ka jira waddankii uu ku baxsaday yaa khilaafay qaanuunka dawliga amba waxa loo yaqaano luwa internationaalka loo dejiyey xeerasha adduunka bini aadanka ilaaliya qofku meesha lagu dilayo lagu xidhayo lagu dhibayo in la geeyo maaha meeshii baa lagu soo celiyey waddanka etoobiya khaladkaa galay kadibna markaas wuxuu ku soo noqday jabuuti maxkamaddaa la keenay waa la xakumay kadib markii la jir dilay la cadaabay kaniif lagu xidhay musqulo lagu xidhay wax bini aadan lagu sameeyey aan lagu samayn akhiiran 10 sano ayaa lagu xakumay ninkaasi marka taasi waxay ku tusaysaa waxa la dhahdo qiyaab alqaanuun markuu qaanuunku maqan yahay marka ay uu jirin waxa dhahdo quwwatul qaanuun markuu qaanuunka iyo xeerku uunan awood lahayn marka ay maxkamaddu tahay musayasa meel siyaasad ku shaqaysa marka ay tahay waxaa ka dhaca waxa aynkaas iyo marka iyadana insha allah waxaan leenahay waa cambaareynayna waa mudana laakiin labada meelood kala duwanaanshaha u dhexeeya ayaan arkaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala okay intaas haddaan kaga baxo mawduuca labaad arrintaas ku eegayey waxaan galaynaa mawduucii aan u fadhino ah mustaqbalka waddanadeennan 10 sano ee soo socota okay waddanadan dad baa yidhi waddanno maxaad u leedahay ma tiraahdidaa uun waddankeenna meesha dadka qaar baa hawaawinaya meeshan waddanada ka jira geeska afrika ee waddan quraate ma aha meesha waxaa ka jira waddanno marka waddannadaasi waa 4 aan ka hadlaya imika anigu waddanadeenna waxa weeyaan dad baa degan annaku aan leenahay iyo etoobiya degan haday tahay soomaaliya canfarbo marka etoobiya waddanadeennu ka mid yahay jamhuuriyadda jabuuti oo dal xora oo ka mid ah jimciyadda qurumaha cudwi ka ah iyaduna waa waddanadeenna waxaa ka mid ah soomaaliya oo iyadu imika ahaan realitygeegu uu yahay 2 waddan oo maaragtay xagga qaanuunka weli ma kala guxin oo soomaaliya dhahdaa laakiin xagga waaqica realitygu waa 2 waddan oon amar kala qaadan oo kala tashada oon tashan waa somaliland iyo soomaaliya marka iyadana waa waddanadeenay ka mid yihiin waxaa kaleeto oo jira kenya oo iyaduna waddanadeenna ka mid a marka aan ka hadlayo waddanadeenna aan waxaan ka dhaqaaqayaa realityga waaqica ka dhaqaaqaya say noqon doonaan 10 sano ee soo socota marka su'aashaasi waa su'aashaas weeye markaan ka hadlayno 10 sano oo soo socota waxaan ka dhaqaaqaynaa aayad quraan oo ilaahay 2 aayadood aayadii waxay ku jirtaa suuratu alxaj dadka quraanka aan akhrin aan bafahmin quraanku wuxuu leeyahay tafsiir cilmi ah in loo macnayo si scientific ah oo lagu eego cilmiga loo yaqaan cilmul ijtimaac cilmiga soosyaalka amba sociologiga loo yaqaan marka cilmiga marka quraanka tafsiirkiisa la saaro waxaana aad ugu dheereeyay 2 oday oo mufassiriin waaweyn ahaa raxmatullaahi calayhima mid waxa weeye tafsiirka almanaar rashiid rida waa min acdam altafasiir fi alcasr alxadiis tafasiirta ugu weyn casrigan ayuu yahay yuu ka mid yahay marka tafsiiru almanaar baa dhacdaa waa sheekh 3 arrimood lahaa salafiya cilmiya ijtimaaciya 3 shay buu lahaa cilmina uu lahaa salafiyana uu lahaa ijtimaacina uu lahaa dhinaca cilmiga bulshada aad ugu fadheeraya waxaa kaleeto oo jira sheekha la dhahdo ibn cashuur oo isaguna tafsiirkiisa isagu wax badan ku dhiga laakiin way ka mid bay tahay isna madrasadaaba ku taasuusanaa cabdilxamiid bin baadiis baa jiray culimo badan baa jirtay oo quraanka si ijtimaaciya u fasirtay oo cilmiga bulshada quraanka uma aynan adoomine quraanka hadaynaya cilmiga bulshada marka waxaa jirta 2 aayadood oo mid ay ku jirto suuratu albaqara kadib markuu ilaahay qisadii taaluud ka soo warramay midna ay ku jirto suuratu alxaj aayadda 4aad ee xaj iyo aayadda 251 ee suuratu albaqara 251 suuratu albaqara ilaahay wuxuu ku yidhi walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala hadduunan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dadka ay isku dhaca ayna jirin dadku isku dhacayaan nolosha ay hirdamayaan
hirdanku hadduuna jirin dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin intaasi jiran way jirtaayo xaqiiqadu waxa weeyaan adduunkan waxaa maamula qaanuun la dhahda qaanuunu tadaafuc qaanuunka ishirdinka iyo isku dhaca iyo isjiidka takhaasumka qaanuunkaabaa dunida xukuma qaanuunka walaal ma jiro adduunka iyo qaanuunka huunna iyo ma jira taasi wuxuu u dhexeeya dadka muslimiinta ee walaalaha ee isjecel iyo dadka isku riximka iyo ka dhaxaysaa laakiin dadku adduunka qaanuunka xukumaya waxa weeyaan waa la sirdamaya sidaan buugana nii sheegi doonaa ka arki doontaan qaanuunkaas wuxuu inoo sheegayaa hadduunan jirin adduunku wuu xumaan lahaa ayada qur-aanku waa waadix la fasadat alardu hadduuna jirin dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin la fasadat alardu dhulku uu xumaan lahaa kownkani ma socdeen noloshu horumar ma gaadheen dadku waxba ma sameeyeen noloshu way qurmi lahayd marka ilahay wuxuu ka daba keenay ayadda walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin ilaahay markuu qaanuunkaa dejiyey fadli badan buu ku leeyahay caalamka yani ilaahay markuu kugu abuuray iska rid ninka ku adoonsanaya midna uu caqligiisa ku abuuray amba ay noloshu keensanaysa inuu ku adoonsado hirdanka arrintaa ka dhalanaya ayay noloshu ku macaan tahay walaakina allaha duu fadlin ilaahay fadli badan buu ku leeyahay dadka caalamka ku nool makhluuqaadka oo dhan tabaaraka wa tacaala taasi waa suuratu albaqara suuratu alxaj iyadu way sii fasirtayba ilaahay suuratu alxaj inteeda badan waa maki suuratu albaqara inteeda badan waa madani waxay ku tusaysaa siraaca iyo loolanku inuu adduunkan ka yahay azali wax weligiiba soo jiray min markii ilaahay aadan abuuray labadii wiiluu dhalay waa isku dhaceen marka siraaca asala nolosha ee heshiisku asal maaha ولذلك أبو إلهي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إلهي وحوري هدي أي ددكو اسكو دعين وأدون كان أونا كجر لولا سياسات لولا دقالة سيدا ما تأركي دونو لولا فكرات لولا إيديولوجيات loolan dhaqaale loolan ilbaxnimo haddayna dunidan aanu ku nool lahay ayna ka jirin maxaa dhici lahaa waxaa la burburin lahaa meelaha ilaahay lagu caabudo oo ay diinaha kala duwan ay haystaan sawaamicda iyo biica iyo masaajidda waa meelihii kiristanka meelihii yahuudda iyo meelihii muslimiintu ilaahay ku caabudayeen ilaahay inta badan lagu hayo masaajidii baa la raaciyey ilaahay wuxuu yidhi qofka ilaahay u gargaaro ruuxa alla u gargaarana إلهي وقرقارة معاه إلهي وقوي وإتال بدنيهي وأنا عزيز أرنكيسا إلهي أمريا ماشا أمر إلهي تبارك وتعالى أوكي إخواني في الله أنكو مركا محان كهدلينا سي علمي اسكو لسعنا أفرع لبعضان كهدلينا إنا مركا اسكو آن اسوايين أن انتو كوبات أن كهدلينا وحوية مستقبلك قبل كينا وكو marka mustaqbal baan ka hadlaynaa arrinta labaad aan ka hadlayno waxa weeye adduunkan inuu yahay meel la isku haysto iyaa is haysta marka ka hadlaynaa dhulkeena waa la isku haystaa iyaa is haysta arrinta saddexaad aan ka hadlayno waxa weeye maxaa la isku haystaa limaada dhulkeena waa la isku haystaa maxaa la isku haystaa maxaa yaala dhulkeena arrinta afaraad ee ugu dambayso oon ka hadli doono waxa weeyaan maada yumkinu an nacmal inaan qabanno maxaa inagu waajiba maxaa inoo suurtagalaya inaan samayno 10 sano soo socota si aan uga baxno dhibaatadan culus ay haysata iyaan ka hadli doonaa insha Allah tabaaraka wa taala okay waxaa jira laba kitaab oo la qoray dhamaadkii qarnigii 20aad markuu dhamaanayay waxaa la qoray laba buug labadan buug waxaa qoray laba nin oo jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ka dhigta cilmiga siyaasadda oo loo yaqaano علماء سياسة أما خبراء سياسة أما فلاسفة فيلسوفية سياسة أما منظرين سياسة ذلك سياسة دجيا لبدن يعني أنت هو كتب كرتا عالم وضنا كرتا صفا ونع علمه وحاول كرتا وخبيره وحاول كرتا وفيلسوفيو وحاد أوران كرتا أو كلايتو هنا يهين محي هنا يهين منظر كوحويان قفك دوضها cusub dadka u soo gudbiya okay labadani markaa maxay yihiin
labada nin midka hore waxaa la yidhaahdaa Fukuyama baa la yidhahdaa. Asalkiisu waa Shiine, waa Japan, laakiin waa nin Maraykana weeyaan. jaamicaddan Harvard ee Maraykankana wuxuu ka yahay professor. wuxuu qoray jaamicadda iyo jaamicado kale ayaa la soo ururiyey ardayda masterka iyo doctoraga samaysa sayniska politicalka markii dowladdii ruushku ay dhacday. markii dowladda ruushku ay dhacday political science-ka dadkii dhiganayay ayaa la soo ururiyey, adduunyadu halkay u socotaa baa laga fikiraya. waxaa la geliyey diraasaad aad u fara badan, sida imikaba loo wada diraasaad kaloo iminka arki doono ayaa iyada la geliyey. okay, diraasaadkaa la geliyey adduunku halkuu u socdaa oo aad u badnaa oo aad u xoog badnaa. waxaa ka mid ahaa dadka geliyey ninka la dhahdo Fukuyama. marka Fukuyama muxaadaru ka jeediyey jaamicad ku taala dalka Maraykanka iyo jaamicado kale oo Harvard raacsan. okay, wuxuu jeediyey kitaab maqaalka la dhahdo nihaayatu taariikh. taariikhdii bini aadamkii soo socotay kumaanku sannadood way dhammaatay. macnaha leedahay markaa way dhammaatay marka lagu leeyahay macnaha leedahay taariikhdii way dhammaatay. okay, muxaadaradii markuu galay haddana wuxuu qoray maqaal. maqaalku wuxuu ku qoray jaamicadda Harvard majalada cilmiga ee ka soo baxda iyuu maqaal ku qoray ka hadlaysa nihaayatu taariikh, inay taariikhdii dhammaatay. muxaadaradii buu u bedelay maqaal. maqaalkiiba markaa xoog adduunka looga akhriyey. waxaa loo arkay inuu yahay maqaal tawri ah, revolution ah, oo sheegaya inay wax dhammaatay, xuqbo kalena ay bilaabmaysa. laakiin isagu wuxuu leeyahay haddeeto dagaalkii ideolojiyadaha ee la isdirirayay u dhammaaday. waxaa adkaatay laba shay: liberalismiga iyo kapitalismiga, ra'samaaliyadii iyo dimuqraadiyaddii. saddexdaaba adkaaday. marka dunida cusubi waxay wada qaadanaysaa se u dhan tahay dimuqraadiyad, suuqa furfuran iyo globalization ama mondialisation cawlama. carrada waa la isku furaya. markii halkaa ay socoto wuxuu u bedelay kadib buug buu qoray. arrintii kitaabkii wuxuu isku bedelay buug, kitaab buu isku bedelay. kitaabka waxaa la dhahdaa taariikhda gabagabadeedii iyo qofkii adduunka ugu dambeeyey, walinsaan alakhiir. nihaayatu taariikh walinsaan alakhiir, iyo qofkii ugu dambeeyey. ninka markaa Fukuyama la dhahdo fikraddan uu ka soo laabmay imika oo wax kaluu qoray, buugaan kale oo mar kale aan ka warrami doono ayuu qoray. laakiin kitaabkan waa kitaab taariikhda bini aadamka meel ka galay. yacni waxaa dhahdaa maaragtay gacmaha waxay leeyihin, jirku wuxuu leeyahay meelo ay iska galaan jirku. taariikhduna waxay leedahay meelo jirka iyo qaybaha xubnaha jirka kala saasaara, mafaasil baa la dhahdaa. halkaa markay taariikhdu socotay buu buugga qoray. markii dhammaatay xuqbaddii dagaalkii qabooba ee la bilaabayay marxaladda inaga sheekeyn doonay soo socota ayuu buugga qoray ninkani. marka buuggaas waa muhiim, waa buug importanya, waa buug tres importanya, waa buug daqiiqa. waliba wax uga warramayo waa daqiiq, laakiin buug saxa maaha. inaan dhahdo buuggu cilmi baa ku jira iyo inuu sax iyo labay kala tahay. aqoontu had iyo jeer sax maaha, way khaldantaa. marka aqoontiisu ninkaa way khaldantay. marka laakiin buuggaas uu qoray ninkaasi. muxuu markaa bishaareeyey ninkaasi? wuxuu bishaareeyey arrintaa inii sheegay inay ra'samaaliyaddu noqonayso nidaamka quri dunida xukumi doona. laba, inay noqonayso dimuqraadiyaddu sistamka qura ee siyaasadeed ee adduunka gacanta ku dhigi doona. saddex, inuu aswaaqda dunida la furi doono oo ay dhammaanayso waqtigii dowladuhu xoolo lahaayeen oo adduunka sharikaadku ay qabsan doonaan khaskhasa wixii la odhan jiray, oo privatization u dhici doono, dunida ay shirkado la wareegi doonaan. halkaas buu isagu bishaareeyey ninkaasi. waxaa ka daba yimiday nin saaxiibkii ah oo isaguna jaamicadda Harvard ka dhiga, laakiin vision ka duwan leh. waxaa la dhahdaa ninkaas Huntington. isagu waa nin Maraykana, isna jaamicadda un buu dhigaa. wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo isku dhaca ilbaxyooyinka, ilbaxnimooyinka dunida isku dhacowgii. afka carabiga waxaa lagu turjumay sidaamu lxadaaraat. sidaamku waa shock, afka faransiiska shock waa isku dhac, ambase waxaa lagu turjumay siraacu lxadaaraat.
loolankii xadaaradahana waa lagu turjumay ninkan Huntington isagu wuxuu ka warramay ilaa iyo 7 arrimood buu ka warramay laakiin waxaan ku soo koobaynaa halkan waqti badan ma haysano wuxuu ka warramay arrinta ah inay adduunka soo mareen boqolaal ilbaxnimo oo ilbaxnimo walbana inqiraaday ay dhammaatay laakiin akhiiran waxaa soo hadhay 7 ilbaxnimo oo weli haddaa taagan oona dhammaan halka uu ka yidhi ninka la yidhahdo Fukuyama taariikhdii way dhammaatay kullu shay uu dhammaaday ilaa kapitalismiga xadaaradda reer galbeedka unbaa soo hadhay uu ka yidhi laakiin isagu ninkani wuxuu yidhi may 7 xadaaro ayaa soo hadhay ninkani markaa xadaaradaha soo hadhay wuxuu ku sheegay in ilaa iyo 7 xadaaradood ee soo hadhay 7 ilbaxnimo ee soo hadhay wuxuu yidhi mid waliba waxay leedahay oo asal u diinba u asala matalan xadaaradan shiinaha iyo jabaanka wuxuu yidhi waxa u ah asal confuciuska waa diinta confuciuska dhahdo ilbaxnimada hindida iyadana wuxuu yidhi buddhismiga albuudiya ayaa u ah ilbaxnimada maaragtay xadaara ruusiya wuxuu yidhi waxa u ah orthodoxka xadaaradda maxaan ku rahdaa maraykanka iyo ingiriiskana waxa u abuuray protestanka xadaaradda islaamkana wadannada muslimiintana waxa u abuuray islaamka wadannada qaarna xadaaraddii katoliga satalyaaniga iyo faransiiska iyo saasoo kaleeto wuxuu yidhi marka xadaaro walba waxay leedahay murtakas diina oo ay ka soo qaadatay ruuxda ninka sayid waa Huntington wuxuu kaluu yidhi xadaarad walbana dowlad baa difaacda marka imika ahaan siraacu wuxuu ku gebagabaysmi doonaa buu yidhi 4 qolo ayaa ishirdin doonta waana waxa imika socda wayaan waxaa ishirdin doonaa xadaaradda maraykanka ama protestanka iyo xadaaradda ruushka orthodoxka iyo xadaaradda confuciuska shiinaha iyo xadaaradda islaamka 3 qolo ayaa ishirdin doonta buu yidhi xadaarad walbana waxay leedahay buu yidhi dowlad ay ku noqoto ka maraykan baa mid hogaaminaya midna ruush baa hogaaminaya midna shiina hogaaminaya laakiin wuxuu yidhi xadaaradda islaamka dowlad hogaaminaysa ma jirto wuxuuna soo bandhigay ilaa iyo 6 dowladood wuxuuna u kala wadwaday wuxuu ku soo gabagabeeyey iiraan iyo sacuudiga iyo turkiga kuwa baa hogaamin doona buu yidhi xadaaradda islaamka lianna masarna dhibaato ku sheegay inkastuu marka dambe soo reebi doono laakiin run ahaan wuxuu soo reebay intaas marka wuxuu yidhi xadaaradda kuwaas baa iyakuna hogaamin doona buu yidhi ninkaasi Huntington marka labadaa kitaab waxaa la yidhahdaa siraacu lxadaaraat ayaa la sameeyey okay dagaalkan buugaantani maxay ka jawaabeen waxay ka jawaabeen markii uu midowga Soviyetig dhacay 90kii ee ay bilaabatay xiqbadii loo bixiyey inay adduunyadu maraykan u wada gacan gashay oo uu dhici doono dagaalkii Ciraaq iyo Afghanistan iyo dunida muslimka la weeraray dagaalkaas waxaa loo macneeyey inuu yahay taariikh cusub oo bilaabatay markaabaa la macninayey adduunku halkuu u dhaqaaqaya marka kitaabkan uu qoray ninkani nihaayatu taariikh buugaan badan baa ka daba imatay nihaayatul juqraafiya ka daba imatay juqraafigii waa dhammaaday nihaayatul ideolojiya ka daba imatay ideolojiyadihii way dhammaadeen nihaayatul adyaan baa la qoray diinihii way dhammaadeen nihaayatul insaan baa la qoray bini aadamkii u dhammaaday waxaa la qoray nihaaya haddeed waxaa bilaabmay casru nihaayaat wax walba uu dhammaadaa la dhihi isagoo lagu dayanayo ninkaa la dhahdo Fukuyama laakiin labadan buug waxaa markii dambe xoog batay buugga labaad ee Huntington yaa ku xoog batay buugga uu qoray ninkaa la oran jiray Fukuyama okay dagaalka markaa halkaa uu socdo waxaan imika markaa maraykanku wuxuu noqday booliis min 1990kii ilaa laga soo gaadhaya 2000 dunidatan 2010 dunidatan waxaa la oran jiray waa caalamkii America nufuudka America yeelatay America markaa adduunka iyada xukuntay okay laakiin 2 quwadood baa isku dayday inay soo baxaan labada quwadood waxa dhada waa 2 quwadood oo caalami ah
waa shiine iyo ruush ruushku inuu dib isku soo dhiso marka ruushka waxaa lagu dhisay laba fikradood si dib loo soo kiciyo waan sheegi doonaa maanta shiinahana waxaa lagu dhisay 4 fikradood wax ka sheegi doono oo iyaduna dib loogu soo dhisay shiinaha okay marka marxaladda waxaa loo bixiyey marxaladdii maraykanku uu dunida xukumayey laakiin labadan quwadoodii waxay sameeyeen waxa dhacdo israaci isdhis maraykanka kamay hor imanayn laakiin way isdhisayeen wayna u aamusayeen wax badanna way fasaxayeen waxay iska dhigayeen dad jabay si ay isku soo dhisaan istiraatiijiyad bay dhiseen istiraatiijiyadda ay dhiseen maanta waxbaan ka tilmaami doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaan arki doonaa dunida soo socota ayaa xakumaya waxaa xakumi doona dad aan sheegi doono iyadana okay inta ayadna halkaa iga iman waan soconaa haddaba waxaan imanaynaa markii la soo gaadhay 2010 ilaa la imanaya 2020 dunida waxaa ka bilaamatay wax cusub waa cusub baa beriyey waagaa cusub ee beriyey waxaa keenay fikrad uu dejiyey nin maaragtay waddanka shiinaha u dhashay oo nin waddanka shiinaha u dhashay oo maaragtay cajiiba oo magaciisana aggan baan inaga sheegi doonaa ninkaasi waa ninka dhisay dowladda shiinaha ee imika aan arkayno waxaa la oran jiray Deng Xiao waxaa la oran jiray Deng Xiao Deng Xiao ninka la yidhaahdo 70-kii waxay u dabaaldegtay dowladda shiinuhu waxay u dabaaldegtay 30 jirkii amba caqdigii saddexaad ee shuuciyadda markii Mao Zedong uu dowladda shiinaha dhisay marka wuxuu yidhi hadalka u fiirsaya wuxuu yidhi ninkaasi Deng Xiao 50 sano kadib dowladda shiinuhu waa inay noqoto dowlad moderni ah bimacnaa dowlad la tartanta waddanada reer galbeedka oo markaa moderni ah marka wuxuu yidhi kelmaddu isticmaalay waxa weeye waa inay noqoto dowlad moderni ah waa goorma 50 sano kadib kelmadahan mustaqbalka markaan ka hadlayno sanadadan layskama isticmaalayoon 50 sano 30 layskama dhahayoon sa annagu aan u dhahno sida Djibouti ma dhawada ka dhacday 2030ka dowladda Djibouti waxay noqonaysaa waddan dhaqaale culus leh dariiqa la socdana maaha dariiqii maysaa layskama oranayoon waa la dhahayaa laakiin waa la dhigayaa sidii lagu noqon lahaa waa farqiga inoo dhexeeyeen wuxuu yidhi markaa ninkaasi kelmadda waxaa ka mid ahaa ninkii asaasay dowladda Israa'iil oo la oran jiray Theodor Herzl 1897 magaalada Peel ee Swiss wuxuu ku yidhi 50 sano dabadeed waxaa abuurmi doonta dowladda Israa'iil oo ka sare kici doonta waddanka Falastiin la dhahdo Theodor Herzl 1900 iyo maxaan ku dhahdaa waqti waxaad 1797 hadalkii uu yidhi waxay kacday 1947 konton sano markay gaadhay dowladda Israa'iil waxaa la iclaamiyey 1948 waa la iclaamiyey idan dowladdii Israa'iil way dhalatay ninkana muxuu yidhi markaa Deng Xiao wuxuu yidhi marka 50 sano dabadeed waxaa iman doonta in shiinu noqdo dowlad moderni ma oran dowlad qawi ah isagu waa in dowlad moderni noqoto lianna markay dowlad xadiisa noqoto waxay noqon doontaa dowlad xoog badan hadalkaa ila socdaya 40kii 50kii 60kii 70kii waxaan u jeedaa 70kii 80kii 90kii 2010 2020 dowladdii Shiinuhu maxay noqotay dowlad xadiisa marka maxaa la dejiyey markaa waxaa la dejiyey khudadii iyo planificationkii ay ku noqonaysay dowlad xadiisa dowlad moderni ah see u noqonaysaa markaa dowlad xadiisa 4 arrimood bay Shiinuhu qabteen 4 arrimood ay Shiinuhu qabteen waxay noqotay in la diro arday loo diro waddanno la doortay bicinaaya waxaa ka mid ahaa Maraykanka waxaa ka mid ahaa Canada waxaa ka mid ahaa Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Faransiiska waxaa ka mid ahaa Jarmalka waxaa ka mid ahaa Australia waxaa loo diray dad
kasoo barta bicisaad cilmiya la diray bicisaad baa la diray delegation laakiin scientific ah waxaad soo barataan cilmiga teknolojiga iyo cilmiga warshadaynta waa kow labo waxaa la soo bartay baa layidhi cilmiga idaaradda waxaa loo yaqaano gestion moderne administrationka cusub in lasoo barto arrinta labaad ee dadkaasi loo soo diray taabay ahayd arrinta saddexaad waxaa layidhi waxaan soo baranaynaa sida waqtiga looga faa'iideeyo ee bini aadanka iyo waqtiga layskugu dhiso ingiriiska iyo maraykanka horumar ka gaadha arrintaas iyadana waa inaan soo baranayn arrinta afaraad ee ugu dambaysa waxa weeye ninka cad sirta uu dunida ku xakumo waa in lasoo barto ninkan cadi sir buu hayaa sirtiisa waa inaan soo baranno waa in loo sabro in lasoo barto afartii arrimood baa lala soo laamay waddanka jaynaha la geliyey waxay noqotay in dowladdii jaynuhu 2000 markii la soo geliyey ay noqoto dowlad moderne ah waxay isku dhiseen jaynuhu laba arrimood oo in la isku dhisa adag tahay waxay isku dhiseen waxa loo yaqaano cilmiga teknolojiga modernizationka iyo waxay isku dhiseen shuuciyaddii dowladdu waa shuuci laakiin dowladdu suuqu wuxuu noqonayaa liberal laba shay isku iman kareen xagga siyaasadda communism baan nahay xagga dhaqaalahana liberal baan nahay wuxuu fahmi kari waayey Fukuyama wuxuu yidhi taariikhdu way dhammaatay dadkoo dhan liberaal bay noqonayaan dhan walba dimuqraadiyad laakiin maraykanka wuxuu yidhi dimuqraadiyad ma qaadanayno waa problemyada hayste ka mid tahay oo nin maaragtay lok bathi la yidhahdo kitaab buu ka qoray kayfa taksiru siinuhu goor muu jebi doonaa siduu buuna u jebi doonaa kayfa mata goor buu jebi doonaa sidee buuna u jebi doonaa okay waxaan markaa uga socdaa waxa weeyaan dowladdii jaynuhu arrintaas bay ku guulaysatay modernigii bay samaysay 2000 ayaa dib loo fadhiistay xisbiga shuuciga fadhiistay ee dalka ka taliya markasta waa la taqiiminaya taqiimkii ugu dambaysay waxaa la yidhi imika waxaan nahay quwa waxaan ka baxnay as-sucuud inaan korno waxaan noqonnay cudma quwad weyn haddaba su-aashu waxa weeyaan sideen u noqonnaa qutbi dowlad dunida maraykanka la xakunta waa ka su-aashu dagaalka aan maanta ka hadlayo waa taa weeyaan maraykankii wuxuu adduunka ku xakumaa dhowr arrimood oo sheegi doono iyakuna waxay dhahaan adduunkan waa inaan maraykan la qaybsanno su-aashu waxa weeyaan sidaan ula qaybsannaa meesha layskama fadhiyo layskama sheekaysanayo waxaa la dejiyey systemka muxuu keenay systemkaas wuxuu keenay waxaan soo socda inaan ini akhriyo maanta shiinuhu wuxuu noqday dowladda ugu weyn ee dunida xoole u dhoofisa alaab dhoofisa adduunka kana heshaa macaash lagu qadaray 4.3 trilyan oo dollar milyaar ma waxaan sheegayo trilyan waa trilyanku waxa weeyaan waa 1 milyaar 1 milyaar baa 1 trilyan waa 4,000 oo milyaar marka trilyan dollar 4 trilyan oo dollar 4.3 trilyan oo dollar ayay adduunka u iibgeysaa waa dowladda ugu iibgeeda adduunka waxay ka qayb gashaa dowladda shiinuhu 35% kobaca dhaqaale dunida iyada samaysa dunida waxaa kobac dhaqaale ka dhacaya waxay keligeed samaysaa 35% waxa ay ku guuleysteen inay baabi'iyaan qoris la'aan iyo akhris la'aantii ilaa ay gaarsiiyeen milyaar iyo barhka Chinaha 3% wax u qorin adiga aqliga bal ka fiirso 1 milyaar iyo 500 oo milyan oo qof imse qof baana wax qori karin xararag 3% sii soco dadka Chinaha wax soo saarkooga maxalliga localka wuxuu gaaray 12.1 trilyan oo dollar yuu gaaray waxay sheegayaan dadka internetka isticmaala China gudaheedu waxay ka badan yihiin Carabta iyo Afrika iyo America Latin inta isticmaasho dhan waxa ka badan inta qof ee China ee isticmaasha maxay internet lianna waxa la sheegay waxa internetka isticmaala dad ka badan dad ku dhow
800 oo milyan oo qof oo China waxay isticmaalaan internet waxaa intaa ka dartay ikhwaani fillah oo yaab badan waxa weeyaan dowladda Shiinaha ninka la oran jiray Mike Rothschild waa madaxweyne ku-xigeenkii waqtigii Trump ya Mike magaciisa waxaa la Mike waa taqaaniin ninka la dhahdo maaragtay Mike Rothschild Ness la dhahdo ninkaas wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenkii Trump uu ahaa wuxuu yidhi waxay noqon doontaa quwadda adduunka ugu weyn dowladda Shiinuhu markuu hadlayo waxaa hor yaallaa arqaan baa hor taallaa shifra hor yaalla lambaraa hor yaalla iskama hadlayo ninkaasi Nike marka maxaa jira maaragtay ninka la dhahdo Mike wuxuu yidhi waxay noqon doontaa quwa cadiima maxaa yeelay waxay gacanta ku dhigaysaa hadalka isagaa laya 90% waxyaaladaas la warshadaynta ee adduunka ugu horumarsan waxaana ka mid ah robotka inay samayso robotka way kaga badisay dowladda Maraykanka waxaad ogtihiin teknolojiga jeegii imsaad bay soo saaraysaa Shiino oo laisku haystaa haddeeto waa Maraykankiiba arday noqday yani way ka qishtay way kaga dayatay iminka Maraykankii wuxuu noqday arday miskiin uu gaari kari layahay waxaa kale oo la sheegay xagga teknolojiga biolojiga way ka siibatay reer galbeedka oo dhan waxaa la sheegay dakaaga istinaaciga intelligenceka dhinaca warshadaynta way kaga badisay waxaas oo dhani waxa weeyaan Shiinihii u dhaqaaqay yaa dejiyey istaraatiijiyadda waxyaalada ka hadlayna maanta weeyaan iskama hadlayno yaa istaraatiijiyaddaa dejiyey waxaa dejiyey ninka aan inii sheegay ee xakumi jiray waddankaas maxaan ku dhahdaa nubuu'adda sii sameeyey maaragtay Deng Xiao nin cajiib tirsi minkan lisoo tiri doonaa Deng Xiaogaas cajiibka ah wuxuu sameeyey isaga ayaa dejiyey nubuu'adan iyo istaraatiijiyaddan abre kadib ninkii la oran jiray Mao Zedong marka halkee loo socdaa waxa loo socda waxa weeyaan waxaan iga idhi Shiinuhu wuxuu ahaa quwa saacida quwa soo kacaysa wuxuu noqday quwa cadiima quwad weyn wuxuu iminka u socdaa qudbi inuu noqdo quwad qudbi ah oo Maraykanka dunida la qaybsata marka taas buu Shiinuhu ku socdaa Chiinuhu marka Chiinuhu ma safaadayo okay banka adduunyada u qaabilsan lacagta banka lacagta ee adduunka taqriir buu ka qoray wuxuu yidhi 850 milyan oo China ah ayaa ka baxay faqri haddeeto isdaayeen wuxuuna yidhi ninka bankaasi wuxuu yidhi Shiinuhu wuxuu ku socdaa in laga waayo Chinaha milyaar iyo barka qof faqiiraba shaqa la'aantu waxay 4% weeyaan Chinaha imika walidaalika dowladdani waxay bilowday inay adduunka ku qabsato waxa aan sheegi doono oo imika inii soo socda okay marka adduunkan aan waxaan u qaybinaynaa igaraal noqda bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah waxaan imika arkaynaa ninkii la oran jiray maaragtay Deng Xiao waa ninkaas taswiirtiisa inii soo dhigay waana ninka dejiyey maxaan ku dhahdaa istaraatiijiyadda nubuu'ada ah inay Chiinuhu halka ay gaadheen maanta ay ka shaqeeyeen nubuu'ada istaraatiijiyadda sameeyey weeyaan istaraatiijiyaddan cantariga ahayna baqbaqda iyo Masar iyo Siisi iyo waxbaan ka hadli doonaayo iyo tani Soomaaliya iyo tan Djibouti iyo Somaliland iyo maaragtay meel cidlo anakoo fadhino abaar ka bixi kari lahaa oo dhulkeenu u egyahay dhulkii nebi aadan uu kaga tagay adduunyada calayhi salaam aan leenahay dowladaan nahayo waxbaan qabanaynayo waxbaan samaynayo baqbaqdeena aan ka sheekeyno insha allahu tabaaraka wa tacaala marka taasi waa taas weeyaan ikhwaani fillah maxaan inaga idhi Shiinuhu maaragtay arqaamta qaar waxay ka sheekeynayaan waxyaalooyin yaab leh oon imika dib uga hadli doono okay su-aashu waxa weeyaan caalamka anu waxaan u qaybinayaa 3 caalamkanaan ku noolahay 3 baan u qaybinaa caalamul aqwiyaa dadku xooga badan oo Maraykan xataa Yurub kuma jirto
jarmal baa ka soo ragali karaya waa maraykan iyo ruush iyo china dadka waxaan u bixinay caalamul aqwiyaa maxay aqwiyo ku yihiin waan arki doonaa marka caalamul aqwiyaa okay caalamka labaad waxaan u bixinay caalam almutawasitiin dadka dhexe oo iyaguna laba u kala baxaya caalamka ku hoos nool aqwiyadan sida yurub oo kale yurub waxay wax ku tahay maanta waa maraykan hadduu maraykan jirin yurub waxba noqoteen quwaddii ingiriiska waxaa loo dhiibay maraykan yurub oo dhanna maraykan bay ku hoos nooshahay okay marka caalamka dhexe oo kuwa dhexena labaan u qaybanaa dad ku awax maxaa dhahdaa nin iski unina iyo nin ku nin a nin baa jira ninnimadiisa nin ka soo qaata marka raggu waa laba edhe nin iski unina iyo nin ku nin ah marka waxay yihiin kuwaba iyo ku yihiin okay waxaa jira kuwo kale oo saddexaad oo waxaa jira waxayna dhinaca mutawasitka kuwa dhexe quwad waxaa jirta nooc min atamaruda leh iska diidan systemka dunida ka jira laakiin kobcaya sida brazil oo kale wadanadan amerikada koonfurta la dhahdo amba iran oo kale amba turkiga oo kale waxa weeyaan waa wadano kobcaya kobcoogaasi waa kobac daati ah iyaku ka imanaya iyakaa raba inay soo kobcaan oo dunidan ay wax ka noqdaan waxaa dhahdaa waa quwa iqliimiya waa gobollada ay degan yihiin bay xoog ka yihiin qolo saddexaad baa jirta oo ku hoos nool reer galbeedka laakiin istiraatiijiyada khaasa iska leh sida jabaanka iyo wadanada aasiyada qaarkood istiraatiijiyad bay leeyihiin kuwaasina macna loo sheegaa okay marka quwadda saddexaad waa awoodaha yaryar maalayacniga marka anu markaan xayawaankan ku matalaa waxaan dhahdaa caalamul afyaal waa maroodiyada caalamul usuud waa libaaxyada iyo caalamul qitat wa tuyuur iyo bisadaha yaryar iyo shimbiraha marka annaku waxaan nahay caalamka shimbiraha iyo bisadaha si kale u dhigayna caalamka waxaa loo qaybiyaa dunida tartamaysa iyo dunida lagu tartamayo su-aasha halistu waa taa weeyaan okay yaa tartamaya yaa isdiraya caalamka maanta yaa maanta isdiriraya waxa isdiriraya waxa weeyaan ruush iyo shiine oo imika ayaamahan dhoweyto shir ku galay ruushka shiinaha dhexdiisa oo ka hadlayay arrimaha ah in taxaaluf la sameeyo alliance in la heshiiyo oo loo heshiiyo maraykan iyo reer galbeed okay iyo maraykan yaa tartamaya adduunka waxaa tartamaya waa labada qolo okay ruushku keligii iskama celin karayo maraykan jaynuhuna imika ahaan maraykan iskama celin karaya keligii marka waxaan u bixinay dadka dunida ku tartamaya iyo dunida lagu tartamayo manaadiqa nufuud meelaha boqolkiiba 60 ka sarreysa in lagu tartamayo yaanu ku jirnaa waynu tusi doonaa marka meelaha lagu tartamayo halista loogu tartamayo yaanu tusi doonaa marka iminka suurta ugu horeysa waxaan arki doonaa iyaa dunida ku tartamaya maxaa naga yidhi waxaa ku tartamaya waa ruush iyo china iyo maraykan tartanka ugu weyni kuwaabuu dhex socdaa okay maxaa lagu tartamaya hagee lagu tartamaya waxaa lagu tartamayaa 4 gobol oo dunida ka mida waxaa loo bixiyey manaadiqa nufuud alistraatiijiya meelaha lagu loolamayo ee istraatiijiga ah ee kii ugu horeeya uu dhargayo caadi maaha meelahaasi maxaa kow ka ah waxaa kow ka ah ocean pacific المحيط الهادي في عربية باسيفيك اوسيانغا ياكا باسيفيك الاوسيانغا halkaas maxaa jira boqolkiiba 50 ilaa 5 baayac mushtarka dunida ayaa mara waa meesha imika uu maraykanku yidhi sida uu qoray ninka la yidhaahdo Kissinger man yamlik qiyaadat alcaalam ninka meesha gacanta ku dhiga hoggaanka dunida iyo gacanta ku dhigaya marka meesha la isku diriraya ee kowka ah waa maxay maxaan idhi waa ocean pacific
والمحيط الهادي وباسيفيك اوسيان meeshaasina waa muhiim jiddan waa meesha imika shiina iyo ruush inta shireen ay soo saareen qaraarka ay yidhaahdeen lama ogolo inuu maraykanku ku sii fida meeshaas mana ogolaanayna siba okay waa meesha kooda meesha weyn meesha labaad ee la isku hayo waa maxay waa koonfurta badda dalka shiinaha koonfurta badda dalka shiinaha meeshaas oo wadano badan oo maraykanka la gacan saara ay degan yihiin iyo jaynihii oo meesha ka ah number 1 meeshaasna waa meesha la isku dirirayo weeyaan waa meesha labaad ee dagaalka caalamiga uu ka socdo kow waa taa laba waa taa waa inaan xoog ula soconaya meesha saddexaadi waxa weeyaan waa meesha loo yaqaano الشرق الأوسط الكبير ما الشرق الأوسط كي هوري بريغا دحي لا يقارن معها وبريغا دحي فتسم وين بريغا دحي وين وكسو بلاميا تركي قدوشيسا وكسو دمانيا إلا إيو جيسك أفريقيا سومريا ودنودا عرب تودن ودنا بدون مسلم سومريا ماشا سينا وماشا صدحات لا اسكو هردينيو لا اسكو هيستويان waxaana loo yaqaanaa sharqu alawsat alkabiir ya bariga dhexe ee weyn baa loo yaqaanaa okay meesha saddexaad waxaan soconno meesha afraad ee ugu dambaysa waxa weeyaan waa qaaradda afrika qaaradda afrika iyadana laysku haystaa si qurus ayaa loo gogoostay iminka quruska loo gogoostay waxa weeyaan waxaa la sameeyey استراتيجية لا يلاحظوا أما واحد صوب بحي فكرة لا يلاحظوا دول مهزومة في أفريقيا دول منتصرة في أفريقيا دولة واحد جرى أفريقيا كوجولستي هي دولة كل جميع أفريقيا وحكمنا ودنا أفريقيا كل جميع فرانسيسكو دتك دتك أفريقيان كي مدو أقون تله فرانسيسكا ويصورنا عيان مريكا كانوا وين يعني مك أوكي جينا هنا ما جعلوا واحد جت واحد هذا يقضى أفريقيا dadka nuqabka elite-ka ee labeenta ah waxaa jira wax la yiraahdo baraaruga afrikanismiga baraaruga afrikanismiga wuxuu ka sheekeynayaa inaa la yiraahdo war afrika aan ku xorowna haymana ina la xukumo ina la yeesho laakiin su'aashu waxa weeyaan afrika ayaa ku jabay faransiis baa ku jabay afrika waxa ku jabay maraykan okay afrika waxa ku guuleystay waxa ku jabay carab masar iyo wadamadii carabta aad marka loo soo way jabeen أفريقيا يا إمك كوجولستي أفر قلو يا كوجولستي إمك إن أفريقيا علاقة في على عشان تشاينا وحاجة نكو هيو إنه بقول كيبا لبيه طبعا دقالها أفريقيا قاعدة كل جاي إنه لبكون يا لب بقول يشان يا لباتر مشروع أو هرمرات أو تضرب بقول يكتر مليار أو دولار إنك بدل يكون بحيان إنه قليل مركاشينا هاللمبر 1 كا لمبر 2 وحكا تركيا لمبر 3 صدح وحكا إسرائيل على صعب لمبر 4 waxa imika aad noqotay ruush marka afrika waxay ku socotaa inay gacansaar kuwa la yeelato oo maartay iyakuna taageera dictatorada iyo sistemyada sii jireenka ah oo marka ay ku isticmaalayaan si u qabsadaan waa inta ka hadli doono marka annaku halkaas aan ka jirnaa okay afrika waxa loo qaybiyay 3 gobol sharqiga maxaa radaa bariga dhexe ee balaadhana 3 baa loo qaybiyey afrika 3 baa loo qaybiyey waxaa loo qaybiyey afrikada sare ee saxraaga ah oo ay degan yihiin carabta iyo wixii u soo dhow iyo afrikada hoose ee koonfurta ah iyo afrikada dhexe oo ka bilaamaysa geeska afrika ilaa iyo waqooyiga afrika senegal ilaa iyo soomaaliya jabuuti saa u tagaysay istaraatiijiyadan maaha sidii hore loo yaqaanay 3 baa loo kala qaybiyey waxaa la yidhi meelo waxaa loo bixiyey meelaha ugu istaraatiijisan waxaa ka mid a geeska afrika dagaalka geeska afrika ka dhacaya waxaa la yidhi wuxuu noqonayaa dagaal nawci ah dagaal nawcigu waa maxay waa dagaal quality waa dagaalka imika markii loo dabaaldegayay 28 ciidamada Somaliland keensaday dowladahan yara imanaya macna male inay Djibouti oo dowlad yara
inay soo dirto ciidankeegii oo dhan raggii xukumayey oo wax u badnaa oo sheegi doono maalin kale inay ka qayb galaan 18-ka maaragtay dabaaldegii Somaliland ciidamada 18-ku soddon maaha hadda 25 maaha 18-ku tiro la qiimeeyo maaha laakiin marxaladan marxalad la qiimeeyaa inay Ethiopia safiir kaamila ay magacowdo oonan ahayn wakiil oo safiir noqday inay magacowdo wafdi adagana ay soo dirto in laga hadlo Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay ka hadlaan isticmaalka badda gaar ahaan Barbara iyo in laga hadlo isticmaalka Zaylac oo sare loo qaadin codkeyga yada inaa midna loo isticmaalo halka askariga midna loo isticmaalo dhaqaalaha waxaa kaloo jira in ay wafdi Maraykana ay diraaseeyeen in Djibouti ay ka soo guuraan oo Barbara ay u soo guuraan maxaa yeelay ciidamada Maraykanku waxay ka fikirayaan meel ay ku nabadoobaan oo aan Ruush Shiina ayna u dhoweyn dagaalka markaas inay Barbara degaan Djiboutina China uu deganaado macnaha ay leedahay waa macno nooci ah dagaalka markaa waa dagaal nooci ah meelaha la isku dirirayo waxaa ka mid ah geeska Afrika oo annagu aan ku noolahay oo sidaan u noolahay aan laba kelmadood ka oran doono okay dagaalkani markaa maxaan u qaybiyey markaa caalamkan aan ku noolahay waxaan u qaybiyey wadano shimbiro iyo bisadaha oo annaka Afrika iyo caalamka saddexaad iyo wadano dhexe oo awoodo dhexe leh iyo wadano waaweyn okay maxaa ku tusaya iminka dagaalkan adduunka ka yaala dowladda Maraykanku adduunka maxay ku haysataa waxay ku haysataa waxa loo yaqaano quwadda fudud naacimka ah dabacsan iyo quwadda adag ee xooga badan labadaa bay wada wadataa marka labadaas maxaa u mabaadi 5 shay Maraykanku adduunka 5 shay buu ku xukumaa wuxuu ku xukumaa waxa loo yaqaano in uu veto leeyahay oo qaraarka dawliga uu gacanta ku hayo number 1 la socda number 2 wuxuu ku xukumaa in sirta teknolojiga uu qarsan jiray saddex wuxuu ku xukumaa ciidamo غير عادية oo sheegi doona intay leeyihiin afar wuxuu ku xukumaa culture saqaafadiisa noqotay saqaafad dunida laga iibiyo afar wuxuu ku xukumaa waxa loo yaqaano iclaam iyo warbaahin iyo television iyo Hollywood iyo wixii la mid ah shanta shay waxa la yiraahdaa ay quwwa doonaysa dunidan inay ka noqoto lambar waa inay shanta shay wax ka haysato su'aashu markaa waxa weeyaan China waxa muu haystaa ya ruushna waxa muu haystaa okay halkan waxaan yara sameynaa isbarbardhig غير caadi ah ciidamada Maraykanka ciidamada dawladda Maraykanka marka laga sheekeynayo okay waqtiina waa nala fiday waan iska soo koobaynaa ciidamada dalka Maraykanka waxa lagu qadaraa waa maanta xaleena 2 milyan iyo 245 kun 2 milyan iyo 245 kun oo askari ciidanka Maraykanka waxaa jira 845 kun 800 kun iyo 45 kun oo kale oo la yaqaano ciidamada ixtiyaadiga ah ee maaragtay ciidamadan u ah kuwa maaragtay adhow gargaar u ah oo ixtiyaadi ah ama maaragtay reserve ah ciidanka reserve ee Maraykanku waa intaas weeyaan Maraykanku miisaaniyadiisu uu ciidanka geliyo waa 750 milyan oo dollar ciidanka oo qura miisaaniyada gasha Maraykanku 13 kun oo diyaaradood ayuu haystaa wuxuu haystaa 6,100 diyaabadood oo kii ugu dambeeyay wuxuu haystaa 40 kun oo baabuurada gaashaamaysan wuxuu haystaa Maraykanku ciidamada badda ee adduunka ugu badan uguna adag 490 ya dooniyadood oo dagaal buu haystaa wuxuu haystaa 11 dooni oo xambaarta diyaarado sida wuxuu haystaa 290 dooni oo wax dumisa mudamira ah wuxuu haystaa 68 quusa wuxuu haystaa 8 alqaamta iyo maaragtay waxyaalada la aaso ee qarxa soo faqra badda ka dhabaysa taasi cad baa dhacday dowladda waxay haysataa nuclear lagu qadaray 3,750 nuclear
waxaas oo dhan waxa weeyaan waxaa qoray global fire power meesha dhado halkaa waa maraykan soo maaha chinuhu wuxuu haystaa 3.3 malyuun oo ciidana 510,000 oo reserve ah wuxuu haystaa 3,260 diyaaradood waa laga badan yahay wuxuu haystaa dibadbaha 3,200 wuxuu haystaa 25 baaburada gaasha maarata 2,500 oo maarata kuwa baaburada gaashamaysana ciidamada badda waxa weeyaan 770 dooni buu haystaa laba qorata oo diyaaradaha xambaari kara u haystaa waxaa kale oo sida kuwa quusana 29 buu haystaa kuwa wax dumiyana 55 kuwa soo saara maaragtay waxyaabada qarxana wuxuu haystaa 36 okay dowladda Chinuhu awoodeedu iyaduna waa taa dhinaca miisaaniyadda dowladda Shiinuhu waa 178 milyan oo dollar halka uu ka yahay Mareykanka 740 milyan oo dollar ciidamada Ruushka isagu waa 3.5 milyan kuwa maaragtay si ku mirgaada u joogo reserve ana waa 2 milyan wuxuu haystaa diyaaradaha dagaalka ilaa 4,789 waa diyaaradaha maaragtay dagaalama dowladuhu waa 13,000 xagga Ruushka isa ayaa xitaa Mareykanka ka horeeya 27,000 oo wuxuu haystaa baaburada gaashamaysana ciidamada baddu waa 603 bay haystaan oo dhinaca maaragtay dooniyaha badda ah ee dagaalka kuwa hal buu leeyahay diyaaradaha xambaara 64 buu leeyahay quusa 48 buu leeyahay alqaamta soo gura miisaaniyadiisu waa 42 milyan nuclearka isaga adduunka ugu badan waa 6,370 xagga Mareykanka 5,800 ka yahay waxaas markaan u fiirsano waxay ku tusaysaa dhinacaas waa dhinacii xooga iyo itaalka marka laakiin waxa ajiiba waxa weeyaan Mareykanka waxaana lagu gaaray wuxuu leeyahay 140 qaacido oo askari adduunka ku leeyahay kuwa la yaqaan iyo kuwa la aqoon halka Shiinuhu hal uu ku leeyahay Ruushkuna wax yar buu ku leeyahay Shiinuhu hal buu leeyahay tajribatu waa yatiim qaacida yatiima waa saldhig agoona marka sidee bay Shiinuhu ula baratamayaa Mareykan su'aashu waa sidaas weeyaan waxaa la yidhi Shiinuhu Mareykan wuxuu kula baratamayaa 3 arrimood oo Mareykanku uu samayn karin Shiinuhu wuxuu u socotaa dhaqaalihiisu wuxuu haystaa lacag ixtiyaadiya oo reserve ah oo deyn ma qaata Shiinaha deyn lagu malay reservigiisa ka badan intuu haystaba marka Shiinuhu meel wax ka soo guru haystaa baynama Mareykanku deyn ku nool yahay marka Mareykanku waa dowlad ka cabsoonaysa iflaas inay kacdo Shiinuhu waa dowlad kor u socota taasi waa midda koobaad midda labaad waxaa la leeyahay Shiinaha wax soo saarkiisu waa mucjiso nin baa ku tilmaamay warshadda adduunka ugu weyn midna wuxuu ku tilmaamay inuu wuxuu u bixiyey meesha u samaysa dunida oo dhan dharka mid kale wuxuu yidhi meesha dunida oo dhan teknolojiga u samayn doonta weeyaan marka Shiinuhu sidaas u socdaa Mareykankuna waa istaagay taasina waa talabaad uu kula tartamayo arrinta saddexaad ee uu kula tartamayo waxa weeyaan waa tan Ruushka iyo Mareykanku iminka ay Shiinuhu sameeyeen ah in la sameeyo suuq dhaqaale oo ka xora dowladaha reer galbeedka oo hadhow toola dad badan oo meel ku baxsadaan laha ay ku soo yaaci doonaan soo gali doonaan arrin khatar ah arrintaas idan marka halkaas waxaa ka arkaynaa inay Shiinuhu haystaan taa laakiin Mareykanku wuxuu kaga horeeyaa isaguna 4 arrimood waa nakay naga iibinaya kow maxaa ugu horeeya waa ciidamada waxaa dhacdaa sarwa biduuni jaysh laa macna laha xoolo badan oo hub u hayn badan macna ma leh marka Mareykanka Shiinuhu wuxuu isleeyahay ilaa 25 sano soo socota xoog noqo dhanka ciidankana tabu ayuu wadaa laakiin imika ahaan ma gaadhayo xagga ciidanka waxaa laga yaabaa xagga tirada waxaa dhahdaa Shiinaha ku xoog badan tira ahaan laakiin tay ahaan Mareykan baa ka horeeya marka Mareykanka waxa uu ilaaliyaa xoolihiisa xoog horena waxaa loo sheegay taariikhda bini'aadanka ma soo marin ilbaxnimo meel gaadhay oo la ilaalinayn oo ciidan ilaalinayn lama arag laakiin waxaa iminka leeyihiin rag fara badan
waxaa muhiim ah in la ogaado inay shiinuhu wadaan tiknolojiyad inay ku hormaraan bilaa ciidana oo ciidankoogu ahada ciidan haddii uun u diyaara difaac laakiin si kale ay adduunka u qabsadaan iyadana waa khibrad la sugayo bini'aadamka laga sugayo inay shiinuhu samayn karaan kitaab buu qoran in yidhahdo lok bati wuxuu leeyahay shiinuhu goormuu khasaarayaa sidee buuna u khasaarayaa wuxuu leeyahay waxaa khasaaranaya shiinaha 3 arrimood horta shiinuhu fikrad ma iibin kara fikrad ma hayo annagu haddaan nahay geeska africa shiinuhu wuxuu naga iibiye ma hayo maxaa yeelay fikrad soo jiidasho le ma hayo labo shiinaha waxaan wada socon mabdi'iisa iyo lacagtiisa mabda'iisu waa dhagax waa mabda adag oo laga cabsoonayo xoolihiisuna waa xoolo gacan furan xoolo weyn buu leeyahay ma wada socdaan dowladuhu markaa ma qaadanayaan shucuubtu diyaaru maaha inay qaataan systemka shiinaha taasina waa mushkilad labaad mushkiladda saddexaad waxa weeyaan shiinuhu wuxuu ku socdaa xoog keensan kara inuu mar quraata soo dhadhaco oo waxaa loo yaqaano السعود المفاجئ يؤدي الى سقوط مفاجئ waxay culimada ijtimaacu yidhahdaan qofku hadduu hore u karo hore inuu soo dhaco yaa suurtagala waa imkaaniyadda taana waxaa qoray ninka dhahdo lok bati waana la filaya inay taasi dhici karto laakiin nin kale oo china wuxuu yidhi buuggaas wuxuu ka jawaabayaa hawaawiga maraykankaasaa raba okay intaas marka aan ka baxno wax weeyaan waxaanu imanaynaa annaka maxaa inoo suurtagala inaan samayno dagaalkan waxaa isdiray waa afyaal waa muroodiyaal annakuna weli waxaan nahay jiir ma oranaya bisado yaryar iyo shimbiraan nahay muroodiyi waxba kama qaadi kartid bisad uu ku joogsanaya laakiin waxaan samayn karnaa 2 arrimood oo muhiima labada arrimood ee muhiimka ah waxa weeye in aan dadka nukhbada ah ee eliidka ah iyo dadka siyaasiyiinta ah oo imika aanan dhakal u soo jeedin oo dhakal u jeeda inay sameeyaan waqfa inay istaagaan statiko su'aal la isweydiiyo maada nuriid maxaa rabnaa su'aashaasi waa muhiim maxaa rabnaa 2 ayu caalamin naciishu fiih caalamka aan ku nool nahay waa caalam caynkee 3 ma mumkinu ficluhu fi hada alcaalam caalamkan aan ku nool nahay maxaan samayn karnaa bes wax kale lagama rabo su-aasha koowaad waxa maada nuriid maxaan rabnaa haddaan soomaaliya degannahay maxaan rabnaa dowlad odayaal ay soo doortaan oo lacag la bixiyo oo wadannada carabta isu keen diraraan oo ismaaciil cumar uu ra-iisul wasaaraha soo amro oo ra-iisul wasaaruhuna uu intuu meel fadhiisto idhahdo hebel ma noqonayo baarlamaanta hebelna noqonaya oo madaxweynuhu han ka dagaalamo oo kani kala dagaalamo oo qolada murashaxiintu ay ka xumaato khadkii oo kani puntland uu dagaalamo oo jubbaland waa la leeyahay meelu marayba oo dhuxul buu iibiyaa waxaaba dowladda maada nuriid maxaan rabnaa cantariyaad ciidan baan leeyahay booliis baan leeyahay oo xoog badanahay dowlad baan u ekahay waxa dhaha cantariyaad bal cantar bin shidad waa jir dhisan oo hoosta viidka baaraqa maada nuriid maxaan rabnaa ماذا نريد؟ أنا waxaan leeyahay ayaan dhaweyto aan ku qoray baashkayga waxaan ka sheekeeyey arrin yaab leh odaygii dulqarnayn calayhi salaam dulqarnayn raximahullah markii uu yimiday qoladii laa yakaaduuna yafqahuuna qawlan aan hadli karayn waxay sigayna hadli karayn in afka aqoon bay u fahmeen maaha waa dad mufradaadkii dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo nolosha iyo ilbaxnimada isku kekeeni kari la waa dad noolaan kari la yahaayeen sida soomaalida maanta waxay doondoonayeen qaa'id nooleeya waxay ku yidhaahdeen adeer qolana dhibtoona soo weerarta annaguna mushkilad baan ku siinaye noo dhis derbi naga ilaaliya inayna soo weeraraan wuxuu ogaaday odaygani maaragtay dulqarnayn inay qoladani yihiin qolo nolosha ka dhacsan sida soomaalida maanta aan nahay kaasi wuxuu u dejiyey istaraatiijiyaddii ay nolosha ku soo noqon lahaayeen nolosha sidee loogu soo noqdaa ayuu dejiyey walidaalika maqaalka mar kale aan inay macnayn doonaaye waxaan ku gebagabeeyey adduunka waxaa jira 2 mujtamac oo weligood nolosha aan samayn karin mujtamaca siyaasiga ah iyo mujtamaca siyaasadda ka maqan mujtamaca siyaasiga waa maxay waa mujtamaca 15 jirka ilaa 9 jirku ay ka sheekayaan siyaasadda dadka oo dhan ay siyaasad ka hadlaan
oo loo kala hadhin almujtamacu siyaasi amba waxaad oran kartaa almujtamac almusayas mujtamac la wada siyaasideeyey odaygii ugaaskii siyaasaddu ka hadlayaa sheekhii siyaasaddu ka hadlayaa profeseerkii siyaasaddu ka hadlayaa kii caamada ahaa ee maqaaxida fadhiyey siyaasaddu ka hadlayaa inankii yaraa siyaasaddu ka hadlayaa inantii siyaasadday ka hadlaysaa islaantii siyaasadday ka hadlaysaa dadkii oo dhan siyaasadday ka hadlayaan marka waxaa isku mid noqday mufakirkii iyo kii caadiga ahaa oo ku tartamaya inay siyaasadda ka wada hadlaan waxaana la helay meel laga wada hadli karo oo qof walbana wuxuu doono oran karo mujtamaca magaciisa waxa dhahdaa mujtamaca siyaasi mujtamaca musayaskii muxuu sameeyaa tii siyaasi iminka waddankan kanada deganahay siyaasadda rag baa ka shaqeeya laba yihiin dad siyaasadda ka shaqeeya waa siyaasiyiinta iyo dad siyaasadda macneeya waa aqoon-yahanka waa mufakiriinta waa khubarada sadday macneeyaan dadka kaleetana way dhegeystaan waxan bay fahmaan waxaabay markaa wacyi bay yeeshaan dadku markaa maxaan u bixiyey kuwa waa mujtamaca siyaasi yasnac tiih siyaasi soomaalida markaa maxaa ku dhacay tiih baa ku dhacay isdaba wareeg dama siyaasadeed waa la isdaba wareegaya meeshii shalay la joogay baa maanta lagu soo noqonaya waa lagu soo noqonaya lianna dadkii o dhan baa siyaasi ah markaa soomaalida mujtamac waxa dhahdaa mujtamac almuqayab siyaasiyan mujtamaca siyaasadda ka maqan ee loo diiday inay siyaasadda ka hadlaan iminka matalan maalin dhaweyto dalada reer jibuuti aa doodayay waxay ka hadlayeen maxaa samaynaa si dekedaha loo nadiifiyo amba jidadka loo nadiifiyo amba loola dagaalamo uskaga iyo gidaafadda dariiqada taalla marka dadku markay hadlayaan maxaan ka qaban karnaa waxaa la galaya siyaasaddii siyaasadda inaan gelin iyadoo aan ka hadalno waa muqayab siyaasiyan lianno waddanka waxaa nadiifiya waa siyaasad siyaasatu tamdiim magaalayntu waa siyaasad ilaalinta dhirtu waa siyaasad ilaalinta bulshadu waa siyaasad kobcinta tacliintu waa siyaasad dhaqaale samayntu waa siyaasad marka haddii la dhahdo waxaan ka hadlin siyaasadda inaan ka hadlin waxaan kala ka hadalno waxa dhahdaa waa mujtamac siyaasadda ka maqan mujtamaca siyaasadda ka maqanna amal ma leh mustaqbal ma leh jibuuti ba markaa example u ah dadku waxay ku leeyihin aan ka hadalno wixii aan siyaasadda ahayn waxaan siyaasadda ahayn maxay ka tahay okay kana muxuu yidhi nolosha siyaasad ka dhigay kana labadan waa problema marka mujtamaca maxaa loo baahanya marka xalku waa maxay waa inay dadka eliidku ay keenaan su-aasha ah maxaan rabnaa mujtamacuna waa inuu dhegaysto uu wacyi yeesho oo marka uu garta maxaan rabnaa ay macneeyaan aqoon-yahanku loo bedelo project iyo mashruuca iyo projectiga in la tamathulo oo axzaab iyo jamaacaad ay qaataan oo ay dadka ugu yeedhaan sidaa ding sheewo uu sameeyo o la dhahdo 30 sano kadib dadkeennu waxay noqonayaan sidaa marka anu waxaan arkayaa haddaan fahanno waxa aan rabno dowlad ah sida aan u samayna aan fahanno 10 sano kadib waxaan lugta saaraynaa dariiqii dowladnimada haddaan saari weynana 10 sano kadib waan inqiraadaynaa waan burmuraynaa waan iswaayeynaa isma taaban doono waan nala qabsan doonaa waan naloo talin doonaa arrinta koowaadi waa taa weeyaan arrinta labaad oo ah ayu caalamin naciishu fii caalamkeen ku nool lahay caalamka aan ku nool lahay waa caalam saddex arrimood baa dhex fadhinaa kow dowlado waaweyn oo ishirdinaya dowlado dhexe oo ishirdinaya iyo waxaan dhex fadhinaa dowlado annakana xakumo oo qiyam lahayn baaleero lahayn ujeeddo lahayn marka maxaan rabnaa in aan kuwan qiyamka aan lahayn aan ka xorowno oo dadka dhallinyarada ee aqoonta leh ay revolution bilaabaan ay dhacdaan ma rabno sidan aad u fikiraysaan maxaan rabnaa si kale in loo fikiro taasi waa marka waa midda koobaad marka ayu caalamin naciishu fii waa inaan fahno saddex waxaan u imanaa maxaa inaan samaynaa mal mumkin ficlu adigu marka waxaan inoo soo bandhigaa si aan 10 sano wax u noqono saddex arrimood dhallinyarada geeska afrika u dhalatay aqoon ha la barto iska day hadalka badan cilmi ha la barto aqoontu waa number 1 adduunka maanta waxa lagu kala tagay waa aqoon shiina wuxuu ku siibtay waa aqoon israa'iil waxay carabka ka horeysa waa aqoon dowladda ee qadar la yidhaahdo waxay macno ku yeelatay waa aqoon jaamicadda ugu horeysa waddanada carabta qadar baa noqotay dooxa maxay ku noqotay aqoontay soo ibsatay alcilm aqoon ku soo fadh dhalinyaroy jaamicadaha soomaaliya ka jira aamina dhigta waxna akhriya waxna barta kow labo waxaan inagu weynayaa dhalinyarada soomaalida ka baxa qabaa'isha waxaad geshiin ururo laba ururo samaysta ururo civila oo loo yaqaano mujtamaca rayidka samaysta
iyaga qabiilka inii bedelaysa iyo mujtamacaad loo yaqaano siyaasiya axzaabna samaysta xisbiga ha sugina hebel iyo hebel oo taqaanaan ininku soddon jir baa tihiin xisbul amal sameeya xisbigii amalka iyo rajada axzaab samaysta axzaabta aad samaysataan waxay inii bedelayaan qabyaaladda markaa siyaasiyanna qabyaaladda ka baxa madaniyanna xagga sifiga ya mujtamaca rayidka ana ka baxa qabyaaladda isku yimaada taa samaysta dhalinyaro fara badan oo buurma igala soo xidhiidha amba somaliland qaybaha kale igala soo xidhiidha amba puntland igala soo xidhiidha amba xamar igala soo xidhiidha amba jijige igala soo xidhiidha amba jabuuti igala soo xidhiidha dhammaantood way badan yihiin waan isku xidhannahay waxaan iga lehay ka baxa fikirka ah intidaarka aad sugaysiin inay odayaal taliyaan odayaashu way fashilmeen dowrkoogiina uu dhammaaday waxay hayaanna ma jiro way soo noqnoqonayaan waxay konjigeynayaanay sarrifayaan ficilkay shalay sarrifayeen maantana ficilkubay ku celinayaan hore uga taga oo dhaafa taasina waa midda labaad inagu waaninayo dhalinyarada oon leeyahay 10 sano kadib waxbaa noqonayna haddaan saa samayno arrinta saddexaad waxa weeyaan oon inagu yeedhay waxa weeyaan diida inaad noqotaan raq la isticmaalo oo uu isticmaalo nin siyaasiya oo ujeedda leh noqo qof wuxuu rabo inuu sameeyo ay tahay marka waxaa israaci doona dadka wax raba ayaa isiri doona waxaan markaa rabnaa anagu inaan samayno tayaar cusub jawi cusub munaakh cusub hawo cusub oo magaciiga la dhahdo tayaarka mideynaya 3 shay ila socdaya waxaan rabnaa wadaadadii diintii bay fashiliyeen qaarkood siyaasiyiintii siyaasadii bay fashiliyeen odayaashiina waxay fashiliyeen dhaqankii waxaan rabnaa tayaar cusub oo 3 shay wata islaami ah diintii wata dhaqankii wanaagsanana wata islaami oo muxaafida sida Erdogan oo kale isla markaana moderni ah casrigiisii nool wadani ah 3 shay wata tayaar loo sheeganayn wadanka loona sheeganayn diinta iyo dhaqanka ilbaxnimadana loo sheeganayn haddaan intaas samayno 2032 waxaan nahay lambar haddaan sidaa yeeli weyno 2032 waxaan noqonaynaa taariikh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين وجزاكم الله خيرا